bal fiiri kalimatu raxma qur-aanka waxay ku soo aroortaa 268 jeer bay ku soo aroortaa. isu naxariista in qur-aanka wax la iska celiyaana waxaa la yidhaha 40 jeer bay ku soo aroortaa. iska celintii un baynu garannaya isu naxariistadiiba baabkeenni way ka baxday. islaamku wuxuu naxariisu yahay baa la yidhi caalamka oo dhan gaal iyo muslim. naxariistii marka nebigii miyuu joogaa hadda sawma tegin oo ilaahay ma qaadin. diintii baa taalla soo maaha. yaa laga doonayaa inay caalamka naxariisu noqdaan oo diinta ku hoggaamiyaan soo innaga maaha. innaguna maxaynu ka badin weynay ree hebel iga reeb bal ree hebel aan meel dooni isla tagnay horta ree hebel iga reeb ina hebel baa i dhibay ina hebel iga qabo ilme hebel naga qabo ya kor inaynu u fafnaa la rabaa. islaamku marka naxariistaa weeye. islaamku diinta ciziga iyo sharafta huwan weeye. islaamku diinta kaamilka ah ilaahay dhammaystiray weeye. islaamku diin naxariiseed weeye. islaamku diin walaalnimo weeye. islaamku diintii walaalaysay weeye. salmaan oo ka yimid maxaa ku dhahdaayay faris ama iiraan ka yimid iyo bilaal oo xabasho ka tegay ardulxabasha waa dhululkeennan aan ku nool lahay iyo maxaa ku dhaha suhayb aruumi oo roomaan iyo talyaani meelahay joogaan ka soo jeeda. islaamku kii walaalaha ka dhigay weeye. islaamku ku abuubakar 80 wiqiyadood oo dahaba bilaal ku iibsaday weeye. maxay isu ahaayeen? nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadii u horraysay uu qabtay markuu maka ka tegay uu madiine tegey maxay ahayd? islaamku ku abuubakar 80 wiqiyadood oo dahaba bilaal ku iibsaday weeye. aabbihii oon markaa weli islaamin baa ku yidhi abibakarow innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintiihi waa walaala buu idhi ilaahay. haddii iimaan lagaa helo yaa maxaa lagaa helayaa? iimaan markii lagaa helo baa walaalnimo lagaa heli karaa. iimaankaagu markuu dhammaystiran yahay baa dadka mu'miniinta walaal u noqon kartaa baa lagu yidhi. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadii u horraysay uu qabtay markuu maka ka tegey uu madiine tegey maxay ahayd? inuu saxaabada laba isugu xidhay uu walaaleeyey bay ahayd. cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd ibnu rabiic abibakar iyo hebel salmaan iyo abu dardaa laba ayuu isugu xidhay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. markaan doonayna bulsho inaynu noqonno ummadaha la tartanta inaynu xooggeenna isku meel quwo si aynu u yeelanno wactasimuu bixabliillaahi jamiican baa inoo taal. xadhigga ilaah inaynu wada qabsanno oo walaala noqonno aynoo taallo horta. haddaan doonayna inaynu wax istarno, haddaan doonayna deegaannadan ku noolnahay in gaajada iyo baahida iyo qaxdiga iyo abaarta iyo colka iyo kala qaybsanaanta iyo fitnada iyo beenta iyo xantu inay ka dhammaadaan, inaan walaala noqonnaa ka horraysa. inaan dhagarta daynaa ka horraysa. inaan xanta daynaa ka horraysa. inayn beenta joojinnaa ka horraysa. inaan isku dirkaan ka shaqaynayna ka baxnaa ka horraysa. inaan fadhi ku dirirka soo gaabinnaa ka horraysa oon masaajidda fadhigooda badinno. inaan maslaxada ka shaqayno oon mafsadada ka tagno yaa ka horraysa. ilaahay imise jeer buu qur-aanka dhexdiisa leeyahay walaa tufsiduu fi lard laa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. dhulka ha fasaadinina. dhulka maxaa lagu fasaadiyaa? ya dhulka adugu intaad qaadda ma jarjari kartaa? sida xabadda roodhigaa dhulka ma googoyn kartaa? dhulka ilahay maxaad yeeli kartaa? dhulka ilaahay waxaad wax ku yeeshaa waa macaasi wey. dunuub iyo ismi ha ku samaynin. laa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa buu ilaahay leeyahy. wanaagga ha ka dooranin xumaanta baa lagu yidhi. xumaantu qur-aanku inoo diidan yahay oo wanaaggu inoo tilmaamaya. waxa weeye islaamkan la doonayaa islaamka nabadgelyadiiyo walaalnimada ku wada nool. ilaahay markuu mu'miniinta tilmaamay wuxuu yidhi ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum. bal fiiri kalimatu raxma qur-aanka waxay ku soo aroortaa 268 jeer bay ku soo aroortaa. isu naxariista in qur-aanka wax la iska celiyaana waxaa la yidhaha 40 jeer bay ku soo aroortaa. iska celintii un baynu garannaya isu naxariistadiiba baabkeenni way ka baxday. soomaadan garan ilaahay muxuu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. lama odhan ma arsalnaaka ilaa raxmatan lilmuslimiin. muslimiinta keliya lama dhihin. islaamku wuxuu naxariisu yahay baa la yidhi caalamka oo dhan gaal iyo muslim. naxariistii marka nebigii miyuu joogaa hadda sawma tegin oo ilaahay ma qaadin.
diintii baa taalla soo maaha yaa laga doonayaa inay caalamka naxariistu noqdaan oo diinta ku hoggaamiyaan soo innaga maaha innaguna maxaynu ka badin weynay ree hebel iga reeb bal ree hebel aan meel dooni isla tagnay horta ree hebel iga reeb ina hebel baa i dhibay ina hebel iga qabo ilme hebel naga qabo ya kor inaynu u fafnaa la rabaa inaynu kor u baxnaa la rabaa inaynu wanaagga ka wada shaqayno aynu wanaaggu wixina taraa la rabaa ma aha inaynu safaasifati alumuur aynu ku dhex noqonno ma aha islaamku marka naxariistaa weeye islaamku diinta ciziga iyo sharafta huwan weeye islaamku diinta kaamilka ah ilaahay dhammaystiray weeye islaamku diin naxariiseed weeye islaamku diin walaalnimo weeye islaamtu diintii walaalaysay weeye salmaan oo ka yimid maxaan ku idhahdaayey faris ama eeraan ka yimid iyo bilaal oo xabasho ka tegay ardulxabasha waa dhulalkeennan aan ku nool lahay iyo maxaan ku idhaha suhayb aruumi oo romaan iyo talyaani meelahay joogaan ka soo jeeda islaamku kii walaalaha ka dhigay weeye islaamku ku abubakar 80 wiqiyadood oo dahaba bilaal ku iibsaday weeye maxay isu ahaayeen maxay isu ahaayeen abibakar iyo bilaal xaggay iskaga soo dhacayeen 4.5ka way isaga dhowaayeen soo maaha laa ilaaha ila allah marka nasabka la fiiriyaan innagu wax ku qiimayno ila innagu diin wax kuma qiimayne marka nasabyadan wax ku qiimayno la eego meel lamayna iskaga soo dhacayn aabihi on markaa weli islaamin baa ku yidhi abibakarow xoolahaaga haddaad nin berri wax ku taragashan lahayd danbayay ahaan lahayd buuhi nin miskiin oo la addoonsado xoolaha intaa leeg maxaad ugu bixisay abibakar markuu ka gadayey ubay ibnu khalaf bilaal ka gadaayey 80 wiqyadood oo dahab uu bixiyey baa la yidhahdaa 80 wiqyadood oo dahaba adugu qiyaasoo lacagtii berigaa jirtaya 80 wiqyadood waa 80 meeloodoo min 40 weeye 80 min 40 garaamihi waa imis 80 markuu siistay oo aan ku dhufannay 40 oo midiiba ay 40 garaam tahay yacni wiqyadiiba waa 40 garaam waa 3,000 iyo imsaad tidhaahdeen 3,200 soo maaha 3,200 waa imse dollar hadda halka garaam 3,200 konton dollar ku dhufo ama 40 dollar ku dhufo lacagtuu bilaal ku gatay abibakar baa kuu soo baxays 1,400 oo sano ka hor bay joogtay ma aha intaan sicir bararku dhicin 90kii soomaaliya intaan la kala cararin ma ahayn 1,400 oo sannadood ka hor buu lacagtaa abibakar ka bixiyey walaalkiis bilaal waxaa lacagtaa u gooyey waa walaalnimo nasab ma aha sow garan mays abibakar wuxuu ku yidhi ubay ibnu khalaf markuu gadanayey hadal buu ku yidhi bilaal wuxuu ku yidhi wallaahi abibakarow hal wiqyada mooye haddaad xitaa wax kale ma haya idhihi lahayd bilaal waan kaa iibin lahaa lianna laa khayra fiihi bilaal khayr kuma jira buu yidhi maxamed iyo balaayu raacay muxuu ku yidhi isaguna wallaahi haddii awlaaddayda wax ka soo hadhay oo adduunya aad bilaal diidi lahayd lacagtayda oo dhan maahae wax kale inaad bilaal igaga iibiso wallaahi la abicannaka bihaa buu yidhi intaan mulkiya waan siisan lahaa saaka bilaal wala aclamu anna fiihi khayra alkaiir walaalnimada naga dhaxaysiya khayrka ku jiraan ogahay buuri adigu bal iska badaa ruux islaam aad isugu timideene ka aabbahaa iyo hooyadaa dhalayna masaajidka kugula tukanaya maxaa